nuurshe waa walaalkeen waa wiil Soomaaliyeed waa wiil dhalinyaro ah waa wiil fanaan ah waa wiil mustaqbal kule fanka Soomaaliyeed sida hore idinku sheegay waa wiil u baahan yaani dhiirigelin Soomaaliyeed u baahan waa nin xaas leh marwo leh awlaad Ilaahay siiyay sida nin walba oo Soomaaliyeed ama gabar walba oo Soomaaliyeed ay ku haminayso Daahir Cali Sow ba program wuxuu bilaabay asaga iyo maaragtay dayax intay isku yara dhaceen in oo maaragtay program familian oo galo oo maaragtay oo ninkii gurigiisii iyo xaafadiisii inta u doomaro oo wuxuu doono ka sheekeeyo asagoo u adeegsanaya fikir wiilkan yarka ana soo saaray ana adeer u ana inta ka dhacay ana maaragtay siidigiisa iyo ana hebel adu waxyaabo badan oo iska soo qaatay markii dambana magac Facebook caaw aniga waxa iga hadlinaya ma aha Dayaxdal Nuurshe in aan leeyahay waa difaaca mana difaaci karaan Dayaxdal Nuurshe laakiin waxaan difaacaya gabadha walaashay oo ina adeertay anigu waa ina adeertay Daahir Cali Sow haday walaashiis noqon weydo oo ina adeertiis noqon weydo anay walaashay tahay anay ina adeertay tahay Dayaxdal Nuurshena waa siidigeen qofkii maaragtay ninkii walaashiis jecel waa inuu siidigiis xishmeeyaa walaashay hadaa jecesha waa ina siidiga xishmeesaa walaasha sariirteeda war adiga siidiga waa isqaban kartaan war adiga siidiga hadal xitaa isku khilaafi kartaan war adiga wax walba siidiga isku qaban kartaan laakiin hadaa tiraado ka waran siidigay haduu hadalkayga maqli waayo walaashay aniga ila dhalatay sariirteedan ka sheekeen hadaa tiraado ka waran sariirta walaasha marka aad ka sheekayso oo aad bulsho la soo hor fariisato bulshada ku dhageysanaysa ayadu ma caafimaad qabtaa mise waa bulsho waalan war sheer gareeya dhamaantiin bal sidii ma dhaweyta u sheer gareeysan u sheer gareeya si cunaqabateynta Facebook dadka qaar ay ku haystaan oo uga baxo Facebook oo xoroobo Facebookna waa xoreynayna Ilaahay ballantiis way waa xoreynayna waa ka xoreynayna canaasiirta isku mooday inay waxyaabaha qaar ay dadka ka dhaadhicin karto war dadku way baraarugsan yihiin way soo jeedaan Soomaali Maxamed waxa idin sheegaya war ma ninka ka sheekeynaya ninka walaashiis ninka qaba gogoshiisa ka sheekeynaya ma aynin seedigiis ee walaashiis buucay muxuu leeyahay matqana Dayaxdal Nuurshe ilmaha waa loo dhalay war Dayaxdal Nuurshe ilmaha waa loo dhalay marka aan leedahay waxa ay la mid tahay walaashi Google Dhaaf bay sameysay adoo TV iyo bar bulsho la soo istaagay bay la mid tahay sabab ba afkaaga uga soo bixi kartaa wiilasha yar yar ee Daahir Cali Sow ilmihiisa la soo waalay anigu qabiil ay yihiin ma aqaano laakiin Soomaalida Facebook isticmaashay habar gidir bay ku sheegaysaa laakiin anaga habar gidir oo diidan oo dayax u aaminsan seedi oo u aaminsan walaal oo u aaminsan nin karti leh oo u aaminsan nin gabar xidid nala oo u aaminsan nin wanaagsan oo u aaminsan nin maaragtay fanaan Soomaaliyeed maxaa keenay marka bal fikir waxa keeni kara in gabar Soomaaliyeed oo ina adeerta ama walaasha sariirteeda inta u doowa marta aad tiraado abay sariirtaada sidaas ay waliba yaa u sheegaysaa gabadhii uma sheegaysid yaa u sheegaysaa ma taqaana waxa la soo hor fadhiisanaysaa bulsho badan oo 13 milyan oo qof oo Soomaali gaaraysa hortooda inta la soo fadhiisata waxa leedahay seedigay waa sidaas waa seedigay sidaas war xaflad habeen dhaweyta xaflad buu u qabtay gabadhii hal mid idin sheega Soomaaliya sheer gareeya dadka hadda nagu cusub sheer gareeya dhamaantiin waxa idin sheega habeen dhaweyto page and view buu wuxuu ugu qabtay xaflad sanad guuradii ka soo wareegtay arooskiisa asaga oo ka talinaya farxadda xaaskiisa iyo qoyskiisa sawir buu la galay fiidiyoyo baa la sameeyay wax walba la sameeyay meel walba yaani si walba sameynaya waa farxadda qoyskiisa waa farxadda noloshiisa just waa qofka free of speech freedom qofka bila aadmiga waa inuu sidoo uu doono u dhaqmi karaa waa seediga laakiin adiga waa inaad ka xishootaad leedahay hal sawir ee walaasha leedahay hadaad hal sinti ku hesho Daahir Cali Sow hal sinti hadaa ku hesho hal sinti hal sawir ee walaasha ay leedahay hal sinti hadaa ku hesho waxa ay la mid tahay jirka eedada adiga eedada jirkeeda adoo ka ganacsaday la mid tahay sababtoo adiga tii ina adeerta ahayd baad video ama sawir beena intaad ka soo sameeysaa leedahay waa soo dhigaysaa leedahay maxaa la yiraahdaa Dayaxdal Nuurshe iyo xaaskiisa Daahir Cali Sow awalan yaa bana wa ina adeerka markii la ilaahay yaa bana war ina adeerka aniga waxyaabaha qaar kama shir galaan war anaga gabar waana laga qabaa anagana gabdhaan qabnaa war anaga gabdhaha kuma xadgudubno gabar waa naga mamnuuc ragga waa la xifaaltana ragga waxaana dhex mari kara xitaa heer la gaaro inaan ragga isdilaan waana laga fariistaa laakiin gabar markay timaado gabartii waana laga qabaa xidid baan nahay waxaan nahay dad qaraabo
waxaan nahay dad xishmad mudan haddaan iskhilaafno meel loo noqday leedahay meesha loo noqonayna waa naqaanaa waxaan leenahay odayaal dhaqameed waxaan leenahay wanaag waxaan leenahay wax walba laakiin hadday bahashi kula fogaato annaga dowladda Soomaaliya iyo maaragtay iyo meelahaas isla ogeyn laakiin gogashi guriga haddaan ku soo noqono guri xaaska bal fiiri ilaah baa idinku dhaarshay caaw ninka ragga ah meel lagala hadlo meel ka xun wallaahi billaahi tallaahi ninka ragga ah hooyadiisa hadaa disho wuxuu ka neceb yahay inaa gogashiisa iyo sariirtiisa caaw aad gadaal ugu soo noqoto ninka gadaal ugu soo noqonayana mataqaanaa wuxuu yahay waa siidigiis daahir calasow bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa marmarka qaar waxay ku daawanaysaa ma aha inay wax ka faa'iido waa laxnimo inay ka firi fikir laxnimo ay kugu jira fikirka laxnimada ay kugu jira rabtaa in ay bulshada Soomaaliyeed marmarka qaar ay iska dhageysato wax naga keenay naga ka hadashiinaa daahir calasow ugu celcelinayna waxay tahay war maaha magacaaga iyo magac la mid ah inaan afkeena aan soo galino brother waa ku dul qaadanay tan u dul qaadanay tukala u dul qaadanay daahir calasow waxa rabtaa ay soo qori kartaa kan waa jareer maahana xalimo khalifa dhashay waxa rabtaa ay soo qori kartaa laakiin daahirow wallaahi billaahi tallaahi magaca ilaahay baan ku dhaartay adiga daahir calasow markii lagu bixiyay war calasow habar gidira xagee ku aragna billaahi calayk sacad baaha igu tiri sacadka adiga tahay yaa ka tahay sacad ree maxamed baan kaay ree maxamed ree calasow la baxay hadii la keeno wallaahi billaahi tallaahi 200 oo halaada iga wallaahi mag rageeda iga diyaar ah anigana waa abtirsanaya sinjigeygii farcigeygii iyo meesha aan sal ku leeyahay abtirsanaya hadii la soo saari waayaan ku yiri tug dhalaa daahir saaxiib aan kala xishoono abdiftaax axmed xirsi ciyaaye caaw daahir calasow iyo habar gidir oo noo afkeena waxa artaa ka raadin brother laakiin ninkaas dayaxdal nuursha waa seedigeen annaga xushmadu naga mudan yahay annaga xushmad ninka dayaxdal nuursha si kale wala xifaaltan fanka kala xifaaltan dhalinyarnimo kala xifaaltan waxa doonta kala xifaaltan oo kale to I don't care about laakiin markay ay timaado in maaragtay barnaamijyada qaar ay timaado sariirta adiga just hadaa tahay nin habar gidir ah gabar habar gidir sariirteed si uga sheekaysa billaahi calayk daahir calasow caaw aniga waxa jareer waa isoo qor jareer ahay jareer waa nin Soomaaliyeed jareer baan ahay waa nin Soomaaliyeed baan noqonayaa ilaa hadda just wiil Soomaaliyeed aan taagana maxaan ku raadaan marka xumaantii ay ku jirto meen kugu raaca ma xumaanta futada faraha kula jirtaa ma futada faraha la wada galnaa marka firi qoom dhan oo bulsho ah oo uuman oo nooc walba ka samaysan oo habar gidir la yiraahdo bacaaw waxa la leeyahay habar gidir waxa isku raacday inay wiilka yaraa ay seedigood ahaa ay sidaas social media ka dhaan daahir calasow justi ma ana iga dhicin kartaa aan dayaxdal nuurshe aan wada cayno say iga dhicinaysaa who am I aniga marka awowgay u talin jiray marka adiga aan wax ka adoo maaragtay wax ka dhageysanay brother wax walba aan iska maqalnaa wax walba aan iska dhageysanaa laakiin daahirow marka ay taagan tahay arrimaha qaar no way waa u diiday yaasiin calasow habar gidir waa diiday asagana soo weydii midda kale oo ku soo harta waxay tahay daahir waxa rabtaa soo qori kartaa laakiin bulshada Soomaaliyeed caaw hal mid ay idin sheegaya wiilasha iyo gabdhaha habar gidir wiilasha iyo gabdhaha bulshada Soomaaliyeed kale ee daahir برنامجkan dayaxdal nuursha ku waafaqsan hal mid ay idin sheegaya fikirka aan leedahay dayaxdal nuursha ku dhaliil fikirka aan leedahay qof kale ku dhaliil fikirka adiga kugu dhashay qof kale ku taageer laakiin just fikir qof kale uu soo bilaabay daahir dayax labadiina asaga u sokeeyay laba nin oo saaxiib ay ahaayeen just ma ninka khilaafay dartiis ba adiga leedahay ana waa khilaafay maxaa ku khilaaftay haddii aan su'aal ku weydiiyo daahir wuu khilaafay waa sax dayax way iskhilaafeen sax dayaxna wuu khilaafay maxaa adigu ku khilaaftay marka wiilka Soomaaliyeed oo dayax inuu soo caayir rabo maxaa ku khilaaftay runta marka ka wada hadalna imaanaysa taas su'aalahaas qofka maankiisa uu fadhiyo oo fikirkiisa fadhiyo su'aalahaas markaan isla nimaadno qofka markaas la ogaan karaa markaas dib loo noqon karaa markaas waxa jira oo maskaxdiisa uu weydiin karaa daahir wiilal buu dhalay
هولن بيدقين بريد يدقين ويلش ظاهر دلي قبل انت اي غورسدان اي لا سو فريستان اي خيدد odayga la noqon doona daahir ilaahan kugu dhaarshay ilmaha aad dhashay qodxaha u daadinayso kada ilmahaas ana adeer u ah adiga 60 jir aad tahay meesha rabto u galbatay nasiibka anasi mar doonsaday heestaas aad si qaadaysa oo si socota laan galbataa tahay brother ilmaha yiriiska ku 10 jirada ah ee aad dhashay qodaxda u beerayso qodax kale uma beeraysid oo cid dilaysa iyo cid ku xad gudbaysa midna ma jirto laakiin sumcad xumo magac xumo aabiin ba daahir cali soo ahaa rag lama kaftami karaan wallahi oo billahi oo tallaah inaysan shaah lacbina ku raga markay bibit soo fariistana loo kacay leeyahay aabiin facebook hal sinti ka raadin jiray war ilaahay ka cabsaday brother waa ka xishoona waxyaabo badan aan kugu tixgelinaa laakiin tan may gogosheeni gabar annagana laga qabo يعني او وروليبا هذا ايغا سوكيه gabadhu waa naag sacad siciida niyo runta afkan ku dhufanaya hadaa sacad xalaal tahay daar cali soo ilaahay baan kugu dhaarshay fiqi qadiyad sacadnimo ku taageerta gabadha sacadka ah ee adiga ina adeertaay gogasheeda ina ka sheekayso ee ilmaha ee dhashay ka sheekayso wartaahir adiga ma kulaha boontahay brother ما مسكحدا هبينada habeen waa khaldami kartaa maskaxdaada si kale waa noqon kartaa laakiin habeenka labaad maskaxdaadu sidee ahayd aaw aniga leedahay ninkan waa jireer ahay aniga jireer baan ahay jireernimadeedu waa qaatay laakiin adiga qaado dulnimada kugu jirta qaado dulnimo waxay ka bilaabataa gogosha walaasha marka ka sheekayso gawaad meeta gawaad who are you adiga gawaadnimada kugu jirta ka war mid ku fikir marka hal mida meesha taala aniga aabahay iyo ma aragtay iyo waxa doonto sheegi kartaa cida doonto isoo weydii Cabdifataax aabihiisu ahaa iyo xagee ka dhacay iyo waxa doonto soo dheh laakiin aabahay iska daaya adiga aabaha daahir ka cilmi sareenin ka koreenin ka hoosin adiga aabaha oday calisu hadduu habar gidir ahaa iyo hadduu saahayn ba adeerkay waa ana waxba ma lihi ilmaha dhashaan u naxaya xitaa ilmaha adiga sii dhashaan u naxaya brother laakiin wax meeshii yaala waxay tahay adiga dayaxtal nursho is qabsateen laakiin dayaxtal nurshahaas qabsanay gogasha walaasheen ka sheekeynaya wareeca ceeb wareeca facebook aan ka joogweyne ilma yaryaro meeshan boostiga soo qortoba ka dhex qaadanaya ma aragtay intay fikrad kala sii baxaan wax soo qorayo leh habar gidireysaan isku ma dhaantii dhasheedatiin habar gidir dad is qabsaday leedahay habar gidir dad is canaantay leedahay habar gidir dad iska dambeeyay leedahay habar gidirna caaw ana idin bulsho Soomaaliyeed caaw sheer gareey hal arina idin sheegaya habar gidir caaw ana u taliya habar gidirnin caaw aniga iga sareeyo iga nabad doonsan malaha Facebook habar gidirta timaada ana u taliya habar gidir Facebook joogta awal daahir cali soo iyo tuuganimo bay ku taba socdeen laakiin xaqqa habar gidir xaqay faantay habar gidir gabdhahoodii in loo socdo iyo gabdhaha gogashooda in loo socday aragtay habar gidirna gabar laga qabo waligeed inay xoolo ugu darto maahan kama daba hadlin waa naga mamnuuc gabadhana laga qabo xoolo u raacina ducana waa ugu darnaa aniga oo ka hadlaya arinta gabdhaha oo dayaxdal nursho waa nin ragnimadiisa daahir cali soo anigu hadduu u baahan yahay daahir cali soo ragnimo bareeda joogta inta muqdisho inta bareeda ka duusho Holland ka duusho waxa raacda diyaarad waxa ku geynaysa Turkish Airlines muqdisho tag markaas ragnimo isweydiista adiga dayaxdal nursho laakiin midaan habar gidir ee bulshada Soomaaliyeed ay aaminsan tahay in ay dayaxdal nursho ay ka khaldamayaan bacaaw ka hadlay dayax wallahi kama na khaldamin seedigeen baa tahay adiga iyo daahir waas qaban kartaan waxba iska ma kaay gelin saa doontaan isku qabta laakiin wiilasha dhalinyarta ee la khalday waxaan leeyahay ilma adeerayaalo habar gidir waa kala dambeyn jirtay caaw qabiil baa idin kula hadlaya si tolnimo idin kula hadlaya wiilasha yaryar ee Soomaalinimada daahir cali soo u daba socdana waxaan ula hadlaya si Soomaalinimo ah kuwa daahir cali soo habka qabiilka ku daba socdana waxaan ula hadlaya hab qabiil daahir cali soo waa nin sacada anna waxa ahay nin habar gidir oo Saleebana laba noo ilma adeerana inta kale tan sidoo kale ilma adeerana noota laakiin gabadha annaga nala dhalatay gogosheeda ninka ka sheekeeya annagana ma matalo mar dambeeyto
والله بالله عاو midna waa idin balan qaaday Facebook anigu leeyahay oo ciwaankayga ah waxa weeye waa gurigayga waa qolkayga ana iska leh sidaan doona u maamulaya qof allaale iyo qofkii mar dambeeta daahir maxaa la yiraahdaa dayaxdal nuursha hab qabiil uga soo hadlaaya oo habar gidir baa wax tiri dhahaya walaalo inta aan friends ahaan lahayn iska keena oo iska tirtir habar gidir dayaxdal nuursha wax kama sheegin waxna kama sheegi doonto waa fanaankooda waa seedigood waa walaalkood laakiin waxa ku soo haray cid allaale iyo cidii fikir dayax ku dhaliilaysa war dayaxdal nuursha waa nin rag afu leeyahay afkiisa isku difaaco waxaan ka hadlayaa oo kaleeto daahir waa nin walaalkeena barahaas bulshadu dhex boodboodaa ha dhex boodboodo daahir dhanka dhalinyarinimada iyo ma aragtay asxaabta brother nooga har annaga siyaasad kuguma haysano kuguma dhaliileena siyaasadaada ciddaa rabtoonto dhaliil ciddaa doonto jeclow ciddaa doonto wado laakiin marka ay timaado fanaaniintii saaxiibadeen ahaa oo seediyaasheen ahaa oo aan markay wadada nooga hor yimaadaan aan wadada kale ka baxaynay tixgelinta aan u hayno sababtoo ah wuxuu naga hayaa gabar ama god ha kaaga jirto ama guntir ama gacan rageed oo guri rageed ha kaaga jirto meeshii la yiri naga hayaa intaan ducaa ugu dar lahayn hadaan sariirtiisa ka sheekeyno billaahi calayk ma kugu raacnaa brother xageen noo wadaa ma dhimanay ma aakhiru zamaana habar gidirti Mareykanka wax iska tirimaysa ahayn soo mid cusub caaw dhalatay hay daahiro caaw dhum eragaas ka soo qoro oo shaadoodo laakiin brother Facebook kaaga horoonin kaagana dambeeynin kaagana gadaaleen mid ku soo hartaa waxay tahay Soomaalida asxaabta la ah ninkaas waxa idin sheegayaa siyaasadiisa cid allaale ciduu doono uu ku dhaliilay waa ku taageerteen cid allaale ciduu doono ku garab qabtay waa ku taageerteen laakiin caawa waxa ay taagan tahay hal mid one way daahir oo seedigiis